maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta gobol ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday 7 kamid ah ciidamada Puntland oo lagu eedeeyay in ay hub iyo gaadiid kala fikadeen deegaanka Tukaraq oo isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland. askarta xukunka lagu riday ayaa ka maqnaa maxkamadda waxaana sidoo kale aan la sheegin halka ay aadeen. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada Bari Karkaar Highland iyo Sanaag gaashaanle sare Caawil Axmed Faarax waxa uu sheegay in xukunkan lagu fulin doono xilliga gacanta lagu dhigo askartan oo xilligan maqanayaal ah. maxkamaddu markii ay dhageystay dooda xeelalaaliyaha markii ay dhageystay difaaca qareenka eedeysanayaasha markii ay aragtay qodobada lagu soo eedeeyay iyo waqtiga ay ka baxsadeen goobta dagaalka markay aragtay qiimaha gaadiidka iyo hubka ay la baxsadeen markay dhageystay markhaatiyaasha la hor keenay maxkamadda oo ah saddexda salkaan isla markaana ay dhaarisay maxkamaddu markay cadeeyeen markhaatiyaashu inay la tageen gaarigii iyo hubkii ay la baxsadeen markay cadeeyeen inay ula baxsadeen hubka iyo gaadiidkaba rabitaankooda ee aanay jirin cid ku khasabtay iyadoo lagu jiro xilli dagaal markay aragtay qodobada lagu soo eedeeyay iyo xilliga dagaalka ee ay ku jiraan ciidamada Puntland xukun maxkamadeed waxay maxkamaddu ku xukuntay 7 eedeysane ee hoos ku qoran midkiiba dil toogasho kuwaas oo kala ah waa dable 9783 Jaamac Cabdinuur Maxamed dable 9888 Cabdirashiid Ismaaciil Geelle dable 8622 Maxamed Axmed Bootaan dable 8839 Cabdi Cumar Jaamac dable 9607 Saciid Maxamed Axmed dable 9707 Cabdiduux Cali Xasan dable 9938 Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ashkir sidaa darteed waxaa xukunkan la fulinayaa waqtiga la qabto xukumanayaasha iyadoo ay maxkamaddu u coskotay qodobka 45 xeerka ciidamada qalabka sida iyo qodobka 186 baarigraaf 2 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq. guddiga difaaca Puntland ayaa horay awaamiir ay soo saareen waxay ku sheegeen inuu ciqaab adag mutaysan doono cid kasta oo ka hor timaada talaabada Puntland ay ku doonayso inay kula wareegto deegaanada ka maqan sida ay sheegtay. Maxamed Madan, Universal TV, Boosaaso.